silicii salma waxay ahayd gabar dhiganaysa jaamacad taasi oo ahayd mid ka qalinjabin rabtay dhowaan kuliyadda adabka. salma waxay isguursadeen wiil ay aad isku jeclaayeen kaasi oo ahaa mid hal sana uga soo horreeyey jaamacadda. salma iyo wiilkaasi guurkoodu muusan ahayn mid la og yahay ama midkii la yaqaanay. salma ninkeeda muusan ahayn mid shaqeeya. muddo kadib maalin ayuu salma ninkeeda uga farxiyey akhbaar qaboojisay laabteeda. wuxuu u sheegay inuu helay shaqo taasi oo u safrayo 2 isbuuc kadib mushaar fiicanna uu ka qaadan doono. wuxuuna u ballanqaaday inay guurkoodu soo bandhigi doonaan markii uu soo laabto kadib. salma iyo ninkeeda waxay ku dabaaldegeen hoteel sagootin ay ku dheehan tahay farxad ayayna wada qaateen. 2 isbuuc kadib wuu safray ninkii salma. 2 bilood kadib salma waxaa la gaaray xafladdeedii qalinjabinta. markii ay soo dhammaatay xafladda salma oo sidata shahaadadeedii waxay ku dhacday dhulka xanuun qabtay awgeed waxaana salma ku soo baxay uur. maalmuhu waxay ku sii socdeen si xanuun leh. salma saygeedana wax war ah lagama haynin, ciwaanna muusan u soo dirin, iyaduna dacwad muusan u xaraynin, sidii uu u ballanqaadayna muusan u samaynin. sidii ayaana lagu waayey isagii, xitaa ehelkiisu war maynan ka haynin. waxay maalmuhu socdaanba salma waxaa ku weynaaday uurkii ay lahayd, fadeexa iyo ceeb ayaana ka dhacday. salma waxay gashay xaalad aysan ku fikiri jirin. hal waddo keliya ayayna salma ku dhaqaaqday iyadoonan la kaashanaynin dhakhtar si uusan u weydiinin dhakhtarka qofka ka mas'uulka ah salmo, yacnii sawjkeeda ama aabbaheed. waddadaasi oo ahayd inay iska soo tuurto cunuga yar ee ku jira caloosheeda. waxay isku dayday inay iska soo riddo ilmaha kadibna aaday u dhiig baxday. waxayna ku hor dhimatay salma reerkeedoo arkaya, hooyadeed iyo walaalaheed kuwaasoo ay ka qarisay guurkeedii ahaa khudbasirada iyo uurkii ay qaadayba. balse geerideedii kadib ayay ogaadeen inay gabadhoodii u keentay ceeb. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.